Machadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ee magaalada Muqdisho ayaa ku qabtay xarunta Machadka Samadoon dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta hay'adaha dawladeed ee Soomaaliya iyadoona si qoto dheer awoodda loo saaray hab-maamuleedka kheyraadka batroolka iyo macdinta. Barnaamijka ayaa waxaa marti ku ahaa Mudane Maxamed Mukhtaar Ibraahim wasiirkii hore ee kheyraadka batroolka iyo macdinta dawladda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin aqoon-yahano iyo ardayda jaamacadaha iyadoona si qoto dheer oo faahfaahin uga bixiyay habka loo maamuli karo batroolka iyo macdinta dalka isagoona shahaadooyin guddoonsiiyay ardaydii dhamaystay tababarka machadka uu qabtay ayadoo ka soo qaybgalayaasha su'aalo ka weydiiyeen ciwaanka su'aasheeda hadii aan si guud aan u guda galo ama aan soo koobo sida aan wada ognahay iskuulada waxa ka jira gumaysi dadban oo dhanka maadooyinka la qaata ah wali ma arkin intaan iskuul dhiganayay wax qaf shidaalka ibara marka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka intii aad joogtay wasaaradda ma jirtay wada tashiyo badan aad la sameysay wasaaradda waxbarashada oo ku aadan in aan barano shidaalka iyo waxyaabaha dalkeena muhiimka ah aan nasiiyay laakiin wasiir haddaan qiimeeyay presentation kaage waxaan rabaa balsaan u qiimeeyay inaan ku saxsanay inaad khaldanahay inaad ila aragto markaad sheegtay dhibaato challenge badan baad sheegtay tabardaraad sheegtay ammaan daraad sheegtay institution habacsanaan oo jirin baad sheegtay intaas markii la isku daro iyo shidaalka sawsaarkiisa oo wax badan u baahan fariintaadu miyaanay muujinayn inaan Soomaaliya aan habbooneen hadda in shidaal soo saaritaankiisa laga hadlo. Thank you very much. marka wasiirka waxaan leeyahay ma santahay cilmiga farabadna oo ka hadashay iyo waxyaabaha nala wadaagtay hal su'aal oo kooban aan rabaa inaan wasiirka weydiiyo waxa jiro misconception laga aaminsan yahay shidaalka Soomaalida ay ka aaminsan yihiin halka su'aal waxay tahay Soomaalida waxay dhahaan hadii shidaal la soo saaro ama macdan la soo saaro wadanka dhawaataa ka dhacayso cimilada xumaanayso dhul gariira dhacay waxyaabo badan ay saameeyna oo ku yeelana taas ma saxantaan leena waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal khayr Allah siiyo Soomaalida waxyaalo iska rumaysan tahay ayaa jira oo la leeyahay shidaalka Soomaaliya waa la baari lahaa laakiin shirkado waaweyn oo Mareykan iyo awal ayaa heshiisiyo waagi siyaad barre iyo waagi ku horeeyba la galay waxa marka xoogaa cagta ugu haya iyaga kamid ah marka wax noocyadaas oo kale raadadka ma aragtay waxa kale oo la sheegaa pressure oo indirect ah in dawladaha Gulf states ay ka jiraan oonan ogoleen Soomaaliya in wax laga soo saaro inta joogtay wax dareen noocaas ah ma ku soo galeen waa maasantahay arinta oo environmentiga manaha waa loo baahan yahay environment ama noqoto xoolaha noqoto ama kalluumaysi noqoto ama bani aadamka noqoto hadda Kenya kale hadii aad rabto petrol station inaad furto iska badhaaf shidaal baaraysa oo qudaysa oo iska badhaaf hadii aad rabto petrol station inaad furto waxa laga baahan yahay environmental impact assessment inaad soo sameyso oo warqad ka soo qaadato waxa la fiirinaa baawarta imaan doonto buuqa ay abuuri karaan pollutionka ay sameynayaan oilka iyo oil macnaha gaaska laga bedela manaha bani aadamka meesha imaanay waxa soo dhan la fiirinaa waa petrol station marka la furayo imagine marka la yiraahdo shidaal la soo saara marka wuxuu u baahan yahay environmental impact assessment badan ayuu baahan yahay laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeya in horta sharciga la sameeyo mana environmental act in la sameeyo then environmental agency la sameeyo oo madax banaan oo arrimahaas la socdo ayaa looga maarmeen arintan manaha wadamada golofka iyo saameyn marguleed saadaati sheegay kulli saameyn waa isku wada leeyahay laakiinse manaha hadda caalamka oo dhan shidaal soo saar isu wada bedelooya marka macna badan ma sameynayso Soomaaliya ka cilna kaliya inay soo saarto ayadoo Ethiopia soo saarayso Kenya soo saarayso Uganda soo saarayso Tanzania soo saarayso Mozambique soo saarayso and so on ilaa iyo kor ka adoon ay soo wada saaraan ilaa iyo Gabon ka tagto manaha waxa kaliya inay anaga naga ciliyaan wax macna badan sameynayso marka inta soo gabagabeyna manaha arinta manaha dawladda federaalka kaliya xaq u leedahay in ay maamusho manaha shirka heshiiska beeraha wax ka soo baxay waxaan filayaa hadii aad akhrisan wuxuu leeyahay kheyraadka Soomaaliya waxa wada leh dadka Soomaaliyeed waxaana wakiilka dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada waxaana isla maamulaya dawladda dhexe dawlad goboleedyada soo marka taa automatically marka waxay muujinayaan inay joint ownership iyo joint management inay tahay ay muujinaysaa gabagabadii ayaa dood cilmiyeedka waxaa goobta ka hadlay agaasimaha Machadka Samadoon Dr. Awaad Sheekh Axmed isagoona u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha ayaa ballan qaaday in doodahan waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhalinyaradii runtii waqti badan geliyay barnaamijkaas u taabagelin lahaa
waxaan rabaa sidoo kale inaan hambali yiraahdo dhalinyaradii hablaha ahay ee barnaamijkan qabana tababarka ka faa'iideystay ee maanta shahaadada la guddoonsiiyey iyo sidoo kale dhalinyaradii wiilasha ahay ee barnaamijka nabadda kula xiriiray oo aan qabanay ka faa'iideystay maantana shahaadada la guddoonsiiyey intaa kadib waxaan u malaynayaa barnaamijkan maanta bilaaban muxuu ku saabsan yahay ujeedkiisu muxuu yahay maxaa looga leeyahay maxaa looga hadli doonaa su'aalahaas iyo inaan la xiriiro waxaa ka hadlaya malaynayaa saaxiibka cabdirasaaq ma raba inaan kusii dheeraado laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo Soomaali baan nahay oo haddii wax la qabanayo fasiraad badan baa loo sameeyaa barnaamijkan aan qabanayno ujeedkiisu wuxuu yahay dalkaani si aan la socno dhammaanteenba hoggaankiisa markaan ka hadlayno nooma dhisna institutions qofka lagu soo diyaariyo adduunyada waxaa ka jira xisbiyo iyo hay'ado qofka soo diyaariyo lagu soo tababaro muddo dheerna waayo aragnimo hoggaamineed soo yeesha la garan karo maanta waxaa la rabaa in la qabto cidda kusoo dhici karto tusaale ahaan dalka maanta aynu joogno haddii la maanta doorasho dhacayso cid naga mid ah oo saadaalin karta yaa hoggaanka kusoo bixi kara ma jiraan sababtu waxay tahay institutionna soo diyaarsada dad oo la yaqaano oo runtii backup u noqon kara la dhihi kara hebel qualified u ah oo soo bixi kara oo la saadaalin kara ma jiraan sidaa darteed waxaa nagu badan in qof cusub marba uu yimaado qofkii markuu imaanayo meesha waxaa maskaxdiisa ka gooxaya expectation uu qabo oo is leeyahay institutionka tegiisa nooca weeye markii uu tago oo wax badan uu la kulmo waxaa laga yaabaa wuxuu filanaya wax ka duwan inuu la kulmo inuu soo u malaysanayo si ka duwan ku noqdaan challenge iyo fursad ay u yimaadaan haddana asigoo la qabsaday shaqadii oo hadda fahma baa laga qaadaa kumana soo noqdo waayo arrimadu kasbada marka asigana meel uu platform uu ku soo bandhigo aqoonyahanka Soomaaliyeed kula wadaago waddanka kama jiraan Machadka Samadoon cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa waxa uu ka mid yahay macadyada cilmi baarista ee ku yaala magaalada Muqdisho. Firdawsi Xasan Cabdi, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Muqdisho.